sababta haweenka aqliga leh aysan ragga uga dhigan halbowlaha noloshooda. haweenka aqliga leh waxay og yihiin inay ku qasban yihiin inay dhib kasta maraan si ay u guulaystaan. haweenkaasi waxay sameeyaan wax kasta oo nafoornimo ah si ay uga guul gaaraan qorshayaashooda nolosha. marnaba ragga kuma haleeyaan farxadda noloshooda. waa kuwan 3 sababood oo haweenka aqliga leh aysan ragga uga dhigan halbowlaha noloshooda. 1. way isqiimeeyaan. haweenka aqliga leh waa kuwa naftooda qiimeeya. waxay qiimeeyaan dhan kasta noloshooda. haweenkaas caaqiliinta ah waa kuwo og waxay rabaan, waana kuwo mar kasta diiradda saara si ay uga guul gaaraan qorshahooda. 2. waxay og yihiin in raggu aysan dhan walba u fiicnayn ama cilad ay leeyihiin. raggu waxay noqon karaan niyad jab. haweenka caaqiliinta ah way og yihiin inay ka qoomamayn doonaan haddii ay isku haleeyaan dad kale. haweenka waa kuwo isbeddel ku sameeya noloshooda intii ay ragga isku haleyn lahaayeen. waxay ku dadaalaan inay wax qabsadaan oo ay noloshooda hagaajiyaan. 3. waxay leeyihiin riyooyin waaweyn oo ay rabaan inay ka guul gaaraan. haweenka aqliga u saaxiibka ah waa kuwo riyooyin leh. waxay og yihiin in guulahoodu ay ku xiran yihiin dadaalkooda iyo go'aanadooda. haweenkaas waa kuwo mar kasta ku dadaala horumarinta naftooda. waxay inta badan isku hagaajiyaan dadaalkooda. waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha iskuma haleeyaan nin.